shirkan waa in adduunyadu ay ku eegto in tacliinta adduunku ay isku dheelatiran tahay loona wada dhan yahay oo cidna gadaal looga tegin waana meesha muxuu ahaa ahmiyadiisa ugu weyn oo shirku leeyahay labada maalin ee soo socoto iyo maanta gelinkeeda dambe ayaa aad la isku dhigi doonaa khubaraa arrintaas soo daraasaysayna ay ka hadli doonaan siyaasiyiinta halkan iskugu yimid aad u fara badan oo wasiirada waxbarashada iyo wasiirada waxbarashada sare intaba ee adduunka dacladiis ka yimid ay isku wada joogaan aad baa loo qoondayn doonaa loogana wada hadli doonaa insha Allah wax ku oola ayaana ka soo bixi doona annaga wadan ahaan runtii colaadaha dhacay daraadeed xogo waan ka dambeynaa dalal badan laakiin xawliga aan wax ku wadno waxaan isleenahay wadamo badan oo horumaray ayaad ku xawlatihiin dhinaca muxuu ahaa in tacliinta laga wada qayb galo qofka naafada muxuu ahaa caruurta naafada iyo caruurta muxuu ahaa baahida gaarka qabo runtii annaga dastuurkeenuna wuu farayaa muxuu ahaa sharciga wadanku uu leeyahayna wuu adkeynaya dastuurka ayuu fasiraya siyaasadda xukuumadduna si aad ayuu caddahay muxuu ahaa in tacliinta Soomaaliya laga wada qayb galo tabar waa meesheeda laakiin ku talagalku waa in laga qayb galo